السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا عشركين امتحانها ويندوز 10 عشركان waxaan ku eegaynaa qaybta Windows 10ka sharing experience ama khibrad wadaaga oo markaas macnaheedu yahay wixii aad computerkaaga ama telefoonkaaga ka isticmaashay ama website ha ahaado ama contact ha ahaado ama phone call ha ahaado ama markaas uga aragtid device-ka kale oo macnaha computerkaaga telefoonka computerka hadda dhowr computer leedahay kulligood ay hal account ku wada jiraan oo Microsoft account ay isla yihiin marka waxa sameyn karaa waxaad awood u yeelanaysaa inaad wax kasta oo isticmaashay aad halkaas ka aragtid ama website soo booqatay ahaado ama wax kale ahaado taasoo tahay iyo qaybta labaad oo ah share experience markaas device ama computer ama phone ama adiga wax ku dhow shay ku dhow inaad wax u didid isla markaasba labadaas qaybood ayaan ku eegaynaa marka taasa u sameeyna waxa tagaysaa meesha oo laga xukumo oo ah hadda taabatid start settings system marka tagtid waxa tagaysaa share experience marka tagtid qaybtan sare waa share experience oo ah khibrad wadaaga ama inaad device-yadaada oo dhan ay isla wadaagaan waxaad ka isticmaashay oo markaa mid wax ka isticmaashay kalena ay markaas wixii u gudbaan marka waxaad tagaysaa manage your account markaad tagtid waxaad hubinaysaa inuu markaas account-kaaga Microsoft waa inaad Microsoft account ku leedahay account-kaasna waa inaad computerka ku sadgaraysid oo halkan haddaadan lahayn waa ku dari kadhaa halkan taaban aad Microsoft account waa ku dari kadhaa sidoo kale telefoonkaagana saas ayaa sameynaysaa hadduu uu yahay Windows telephone haddii uusan ahayn uu yahay Android oo kale ama se iOS waxaa jira app la dhaho phone companion oo Microsoft ay samaysay marka hadda app-ka isticmaashid awood waxa uu yeelanaysaa telefoonkaagana inuu siday computer camal oo kale wax kasta ka isticmaashay ay markaas uu ula wadaago computeradaada oo dhan waxa kamid ah sida waxaan aniga hadda isticmaalaa phone companion oo ah app Microsoft ay samaysay marka mar haddaad app-ka isticmaashid aad login ku samaysid account-ka oo aad computerka ka isticmaalaysid iyo account-ka aad telefoonka isticmaalaysid ay isku mid yihiin markaas wax kasta oo telefoonkaaga aad ka isticmaashay halkaana waad ka isticmaali kadhaa sida waxyaalaha telefoonka haddaan phone app aan furo markaas wax kasta oo telefoonkayga notification soo gala text messages sawiradii wax kasta macnaha waxaasoo dhan halkaan ayaan ka arki karaa oo ma u baahni markaas inaan macnaha contactigayga waa kana wixii macnaha new text message kale ii soo dhacaa calaamad in text message cusub uu ii soo dhacay ayuu ii sheegayaa sawiradii oo kale waxyaalihii kale oo dhan phone callskii ii soo dhacay oo kale halkan laftigeeda ayaanba phone call ka samayn karaa oo telefoon qof ka wici karaa markaas share experience waxay ii fududeynaysaa inaan telefoonkaygii computerkaygii wixii dhan isku xiro oo markaa waxaan ay isku mid ii noqdaan oo kaan rabo aan isticmaalo qaybta labaad oo ah nearby sharing oo macnaheedu yahay wadaagid dhow markaas taas waxa weeye link ama se file ayaa computer ama device ku dhow ama computer ahaado ama phone ha ahaado ayaad link ama file u diri kadhaa isla markiiba marka waxaa muhiim ah shaygan aad u diraysid inuu iyo device-ka aad ka diraysid file-ka ama linkiga iyo device-ka aad u diraysid inay isku network yihiin oo wifi hal wifi ku wada xiran yihiin hadda for example waxaan samayn karaa oo kale sawir ayaan diri karaa oo waxaan u diri karaa haddaan dhaho right click ku sameeyo sawirka waxaan odhan karaa share markaan gujiyo waxaa ii soo baxaya device-yada ama se computerada ii dhow markaa oo optionka
nearby share shidan yahay hadduusan shidnayn markaa device-ka ima soo baxayo oo lama wadaagi karo computerka laakiin kuu shidan yahay way ii soo baxayaan markaan share taabto markaan gujiyo markaa wuxuu u dirayaa computerkaas ayuu u dirayaa waxaa u soo baxaya qofkaas inuu markaas file computerkaaga usoo diray wuu accept garayn karaa uu aqbali karaa fileka usoo diray wuu diidi karaa hadduusan jawaabin oo jawaab markaas uusan diidin aqbalina markaa isagaa iskansalaya oo isjoojinaya markii file adiga lagu soo diro oo device kale laga soo diro halkan waxay kuu sheegaysaa meesha aragtid inaad ku kaydisid hadda haddii file qof uu iisoo diro aan markaas aqbalo oo fileka accept garayo oo si aan idhaahdo markaa kaydi wuxuu ku kaydinayaa meeshan oo downloads folderka marka waxaan sameynayaa computer kale ayaan fileka soo dirayaa si aan idin tuso sida ay u shaqayso marka hadda file oo sawir aan computer kale waxaan sameeyey right click aan ku sameeyey waxaan idhi share markaan share gareeyay computerkana ay soo baxay oo magaciisa spider tip markaan computerkaas aan gujiyo markaa device-kaas ii soo baxay aan gujiyo marka file halkan marka waa kana file-kan iyo meeshuu ka yimi kuu sheegayaa waa save garayn kadhaa waa diidi kadhaa waana save garayn kadhaa waan open garayn kadhaa marka waxaan oranayaa save and open marka wuxuu ku save gareeyay downloads folder wuuna furay markaas marka saas ayaa loo isticmaalaa nearby sharing oo markaas file kaliyana ma share garayn karid waxaa share garayn kadhaa sidoo web linki oo kale hadda web linki aan kasoo dirayaa device computerkii hore oo waxaan tegayaa internet edge marka web linki aan kasoo diray haddaan furo web linkiga computerka iga yimi saas oo kale marka haddaa kasoo qaad telefoonka oo kale haddaad ka isticmaalaysid website waxaa samayn kardhaa isla markiiba computerka aad rabtid inaad ka isticmaasho saas oo kale ayaa ugu soo diraysaa marka sidaan usoo diraa idin tusayaa oo computerka kale uga soo diray waxaan isticmaalay Microsoft Edge haddaad taabatid meeshaan saddexdan calaamadood option wuxuu ku siinayaa oranaya share oranaysaa share markaad tirada waxaa kuu soo baxaya device-yada ama computerka aad rabtid inaad linkiga la share garaysid markaad taabatid markaa wuxuu u dirayaa qofkaas oo markaas device-ka u diray markay accept gareeyaan waxaa u furmaya website-kii marka saas u shaqeeyaa nearby sharing waxaa share garayn kadhaa website waxaa share garayn kadhaa file computerka u dhow si markaas isla markiiba instant waxaa kale oo muhiim ah halkaan hadda sharing experience device-yada ama computerada aad wax la share garaynaysid ama wax u diraysid ama wax la wadaagaysid waxaad samayn kadhaa device kasta oo markaa wifi-ga ama network-ga ku xiran tahay ku xiran baad awood u siin kadhaa inuu computerkaaga wax usoo diro ama device-kaaga wax usoo diro waxaad kaloo oran kadhaa my devices only oo macnaha device-yada adiga ku qoran oo Microsoft account-kaaga ku jira baad awood u siin kadhaa haddaa kan xulatid micnaheeda waxa weeye markaas device-yada account-kaaga ku jira oo adiga leedahay keliya ayaa wax kuu soo diri karaa oo wax kula wadaagi karaa oo computerkan wax la wadaagi karaa haddii aad kan xulatidna device kasta ama shay kasta oo markaas network-gaas aad markaas ku xiran tahay ku xiran ayaa kuu soo diri karaa marka dhanka amniga dhankiisa waxaa fiican inaad xulatid my devices only hataas xulatid sharing experience meeshaan hoosena iyadana waxay la mid tahay device-yada iyagana aad la wadaagi kadhid app-kaaga telefoonka ama se waxyaalaha kale oo markaas aad account-kaaga kula wadaagi kadhid inay noqdaan my devices only waxaad wax la wadaagi kadhaa device kasta oo markaas ku dhow
laakiin dhanka amniga waxaa fiican inaad xulatid mar walba my devices only si aan markaa device kale oo aad isku network tihiin uusan wax kugu soo dirin ama uusan computerkaagaba u arkin. Marka hadda halkan waxay ii sheegaysaa telefoonkayga whatsappka message iga soo dhacay oo example markaad isku xidhid telefoonkaaga iyo computerkaaga markaad isku xidhid wax kasta oo text message kuu soo dhaca ama whatsapp app ama app kale notification ka yimaada ama notification kasta ama ogeysiin kasta oo telefoonkaaga timaada computerkaaga ayaad ka arkaysaa markaad isku wada xidhid oo sharing experience ama khibrad wadaaga waxyaalaha ay kuu fududeynayso ayay ka mid tahay. marka cashirkan halkaas intaas ayaan uga baxaynaa insha Allah. cashirka kan ku xiga hayno ahaato. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.